بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنكو سلامي داودي سودو أنكو سو قدبيو وردقدقا وكايمان يدينا قبالك أوضل وقاسك قودة بيلها عيسى وقاس مستفى محمد إبراهيم أيا لسوغرين أيا إنو دوان بوغشاكو تجدونو مقالة السيلع هالكاسو عيدان كسومالي لان سيوين لوغو دابولايو سومالي لان وحيربتا إنا يكوهر تاكتو إن markaasi ninka la yiraahdo ugaas Mustafa uu magaalada Baydhabo galo waa magaalada aan dhahay Seylac uu galo taasi oo dabcan xaaladda ku sii shidi karta dab kale hadii ugaas Mustafa uu tago magaalada Seylac dabcan waxa dhici kara wixii hore loo ogaa oo ah dagaal inay ka qarxaan magaalada Boonama Somaliland taasi dan ugu ma jirto si taasi looga hortago laga bilaabo Lowyacade lagu xujiyo ceelgaal ilaa banaanka iyo koonfurta magaalada Seylac waxaa lagu daabulay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan ciidanka la yiraahdo maamulka Somaliland kuwaas oo la sheegay inay gaaf wareegayaan gudaha iyo banaanka magaalada Seylac ugaas Mustafa dhinaciisa wuxuu wataa boqolaal asgari oo hubeysan kuwaas oo la sheegay in saacad walba ay dagaalamay karaan ragga saraakiisha qaarkood oo aan la hadalnay waxay sheegeen in laga cabsi qabo in dagaalo u dhaxeeyo ciidanka Somaliland iyo kuwa maamulka ciisuhu ay toos uga dhacaan halkaasi hadii ugaas Mustafa uu ku adkaysto inuu tagayo magaalada Seylac Seylac waa halka la rabo in lagu soo bandhigo xeerka buuga ciise waana waxa hadda ay ka cararayaan ragga jeebwaaweynta ah ee ku sugan gudaha magaalada la yiraahdo Seylac halkaasoo la soo warinayo in laga cabsi qabo dagaalo foolka fool ah inay ka dhacaan xubno sarsaro oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa waxay tageen halkaasi iyaga oo sheegay in aysan u dul qaadan doonin in maamulka ciisuhu ama beesha ciise ugaaskuudu oo taga halkaasi xaajadaas oo laga cabsi qabo inay xiisada u yeesho waji kale oo aan la ogeyn xaaladeedu halkay ku dambeyn doonto ciisuhu iyagu mar walba waxay u hanqaltaagaan oo ay ku celceliyaan dhowr jeer oo horena laga hayaa aragti ahayd annagu dooni mayno inaan weerarno magaalada Boorama laakiin hadiina la ku qasbo inaan magaalada Boorama weerarno dagaal foolka fool ah ayaanu qaadi doonaa waana lagu jabi doonaa magaaladaasi taasi oo dabcan ahayd waxa ugu weyn oo hadda beesha Samaroon ay ka carootay Samaroonku laftirkoodu iyagu waxa ugu weyn oo ay hadda doonayaan ayaa waxay tahay in ay arkaan in magaalada la yiraahdo Boorama aysan gacantooda ka bixin Boorama maalinkii ay gacantooda ka baxdo dad badani waxay aaminsan yihiin in wax walba ay isku soo dhamaadeen isla markaana ay sheekadu tagi doonto meel allow sahal ah oo xaajadu ay tagi doonto dabcan meel lagu kala dhamaado haddaba si looga hortago in ciisuhu ay qabsadaan magaalada Boorama waa tan aragtida la xiriirta in loo baahan yahay xal degdeg ah oo xaajada lagu soo afjaro iyo in la qaado talaabooyin dheeraad ah oo ciisaha lagaga hortagayo sida ay dad badani aaminsan yihiin markana koonfur galbeed ayaynu eegaynaaye guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa maanta shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyey musharaxa u tartamaya kursiga hob 204 kaasi oo horey u bannaanaa baarlamaanka Soomaaliya doorashada kursigan ayaa galabta ka dhici doonta ayaa la yiri ama saacado kadib ka dhici doonta magaalada Baydhabo iyadoo oo la soo warinayo in kursiganba uu ku guuleystay ninka la yiraahdo wasiir madaxana furan oo dabcan ka xoogay sida ay wararku tilmaamayaan nin kale oo ay markaasi isku jaga halkaasi ka ahaayeen yacni arrimahaas ay ka wada shaqeyn jireen Baydhabo waxaad moodaa in wax walba ay saacad isku bedelayaan $400,000 ayaa la soo warinayaa in la siiyay ninka hadda xilka baneeyay ama xoog xilka looga qaaday oo ay dad badan aaminsan yihiin inuusan xilkaasi u qalmin sabab la xiriira inay xaaladdu faraha ka bixi karto wasiir madaxana furan waa saaxiibka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la soo warinayaa in saacad walba ay dhinac sheekada u dhici karto hadaan la helin xal degdeg ah aadan madoobana wali wuxuu manqaltaagaya sidoo kursi kale u heli lahaa xaaladda magaalada Baydhabo dabcan waxay galaysaa jawi kale oo ka duwan kuwii hore waxaana wararka iyo macluumaadka la helaya ay tilmaamayaan inay wax badan isbedeli doonaan hadaan la helin xal degdeg ah oo xaajada lagu soo afjaro gudaana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay kolkii kugu horeysay ku soo bir channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daamacno soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb sida u aragtid
xaaladda murugsan ee ka taagan gobolka Awdal sida dagaaladaasi loo soo afjari karo iyo xaaladdu sida ay ku dambeyn doonto bal aragtidaada qaybta commentiga noogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah